السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا سايمو موضوع ما توقع كسب سيء ما مقشي ورجع سينتولوجي وحليها سينتولوجي ومد كم الديمها عصب أدون كشقية مانتا دين تن أيا وحيالها كسب سن يكنيسة سينتولوجي سرتا أيات كي دون تان موضوع أساس عضا كسر هذا سايمو Eyes for Allah, nothing but Allah. Ba is the beginning of Bismillah. Ta is for taqwa, bewailing of Allah. And tha is for thawab. Scientology haddaba diinta Scientology waxaa aasaasay nin lagu magacaabo Ron Hubbard 1954 waxaana ay laga dhisay dalka Mareykanka. Scientology ilaa xilliga la aasaasay ilaa maanta la joogo waxaa soo badanaya shakiyaad iyo waxyaabo dadka gelinaya shaki taasoo ku salaysan diintan iyo kaniisadda Scientology la yiraahdo iyo siraheeda iyo waxa ay ku dhisan tahay iyo su'aalaad fara badan oo dadka iska weydiinayaan. haddaba mawduucan waxaa soo diyaariyay channelka lagu magacaabo Maktabatul Asrar anaguna waxaan bedelaynaa luqadda afka Soomaaliga. haddaba Scientology waa maxay madhabka ama qaacidada ay ku dhisan tahay diinta Scientology? ما هو مذهب الساينتولوجيا؟ تبنى ديانة الساينتولوجيا على معتقد غريب، وهو أن البشر كانوا موجودين منذ 75 مليون سنة. madhabka diinsan ayaa waxa uu qoranayaa in bini'aadamku adduunka ay joogi jireen 75 milyan oo sanadood ka hor. xilligaas oo bini'aadamku ay gaareen tiknoolajiyadda casriga ah ee maanta gaareen mid la mid ah waxaana xilligaa jiri jiray waxyaalaha hawada sare walwareega sida suxunta duusha iyo mid waxyaalaha la midka jaaduuga. haddaba mid ka mid ah oo xun oo lagu magacaabo Zeno ayaa adduunka u soo degay kadibna waxaa dhacday qaraxyo waaweyn halkaas oo bini'aadamka ay ku baabeen kadibna tadawur ayaa dhacay oo bini'aadamka arwaaxdiisii ayaa dib loo soo celiyay kadibna ruux walba oo cusub oo jidhka soo galaysa ayaa waxaa loo bixiyay Titan ayaa waxa ay la mid tahay ayaa lagu leeyahay in qofka wax walba oo nafsi ahaan xanuun ku dhici lahaa ay ka badbaadiso. taas ayaa asal iyo tiirka ugu weyn ay ka mid tahay diintan. waxyaalaha la yaab kale ee ku jira diintan intaas kaliya kuma korno waxaa ka mid ah cilmiga arwaaxda kaasoo ay ku leeyihiin qofka ruuxiisa waxaa la gaarsiinayaa heer darajadeedu aad u sarreyso heer uu ku kalsoonaado 100% in diintan Scientology oo ka gaaro darajada ugu sareysa. waxaa arintan loo sameeyaa qaab sir ah oo qofka ruuxdiisa kor loogu qaadayo sida ay iyagu aaminsan yihiin laakiin arintaas waxay iskaga hor yimaadeen 100% culimada cilmiga nafsiga ku takhasusay kuwaasoo sheegay in arintaasi ay tahay waxba kama jiraan laakiin iyagu waxay ku antaconayaan inay qofka ruuxdiisa gaarsiinayaan oo ka saarayaan heerkii dhibaatadii oo hore uga soo maray qaraxyadii waaweynaa ee nolohii cirka ka soo degay ee Zeno lagu magacaabay kamid ahaa noolaha xagga sare ka soo degay ama noolayaasha cirka sida jaaduuga iyo waxyaalaha suxunta duusha ay dhibaatadii hore ay ugu geysteen arwaaxda dadka sida qaraxyadii hore iyo waliba infijaaraadkii waaweynaa ka dhacay iyo baabay inay ilaawaan si darajadaas looga qaado. waxyaalaha iyo siraha ku qarsoon arintan ayaan intaa kaliya ku koobnayn. waxyaalahaas waxaa ka mid ah fadeexadooyin waaweyn oo ah in qof kasta oo gelay kaniisaddan Scientology dhexdeeda laga qaado sawirro iyo waliba fiidiyoyaal ama video clip isagoo oo qaawan oo aan wax dhar ah haba yaraatee haysan saasoo qofkaas loogu xujeynayo xujo aan looga dhigayo inuusan qofkaasi faafin haddii uu ogaado siraha iyo waxyaalaha ka dambeeya. laakiin siraha iyo waxyaalaha waaweyn ay kaniisaddu leedahay laguma aamino ilaa qofku marka uu ka gaaro heerka darajada saddexaad. qofka markuu darajada saddexaad gaaro ayaa loo dhiibaa siraha waaweyn. haddii aad ogaatid mid ka mid ah sirahaas waaweyn oo dabacdid inaad barnaamijka u soo saartid waxaad la kulmaysaa caqabado xagga naftaada oo halis ku gelin karta marka dambe in naftaada dhan aad weydid oo lagu dilo. kale ee waaweyn ee loogu weyn Scientology ayaa waxaa ka mid ah in ay leeyihiin rag ku takhasusay qawaaniinta ama shuruucda kuwaasoo difaac uga ah haddii ay la damco in waxyaalo fadeexada laga soo gudbiyo. saas darteed ayaa shirkado waaweyn oo ay ka mid tahay shirkadda HP ee dalka Mareykanka ee filmaanta samaysa ay damacday hadda ka hor inay soo saarto filim ku saabsan Scientology laakiin waxaa gaashaanka u daruuray in ka badan 100 qareen oo ay leedahay Scientology kuwaasoo ka hor yimid qadcan dariiq in shirkadaasi ay soo saarto filimka. waxyaalaha shakiga leh ee ku wareegsan kaniisaddan Scientology intaas oo kaliya kuma koobna laakiin waxaa ka mid ah fadeexado waaweyn oo ay ka mid tahay cunsuriyad. fadeexadii cunsuriyadii 70-meeyadii dhammaadkiisii qabsatay naagta uu qabo ninka aasaasay kaniisaddan
ee Mariso Havard la yiraahdo. Naagtaas ayaa lagu helay 700 dhamaadkiisii mar ay FBI baaritaan ku sameeyeen isla kaniisadda Scientology ayaa dhexdeeda waxay ka soo heleen cadeymo fara badan oo muujinaya tacaddi iyo waliba xuquuqda bini'aadanka oo lagu tuntay meeshaas inay ka dhacday. Sidaas darteed ayaa waxa dhacday in ay arintaas markiiba ay daboolaan oo ay ka hor yimaadaan ragga qawaaniinta ku takhasusay ee ay leedahay kaniisaddan Scientology kuwaasoo gaashaanka u daruuray wax kastoo fadeexad ahaa. haddaba aasaasaha Scientology ama kaniisaddan Scientology si aan hor u sheegnay ninka magaciisa lagu magacaabo Ronald Harvard. ninkaasi waxa uu ku soo shacbaxay markiisii hore qisooyinka khiyaaliga inuu qoro ee fantasia. marka qisooyinka khiyaaliga ayuu ku soo shacbaxay laakiin markii dambe ayuu 1954 ayuu wuxuu la soo shacbaxay sida kitaabo oo ku cadeynayo falsafado iyo waliba aaraa iyo fikro uu xambaarsan yahay sida kitaabkiisa Dianetics la yiraahdo. kutubtaas iyo waliba qoraaladaas faraha badan ee uu sameeyay ayaa waxa uu bandhigay rag culimo ah kuwaas oo ku takhasusay cilmi nafsiga kuwaas oo darajo heer sare ka gaaray cilmi nafsiga. laakiin bandhigii uu sameeyay culimadaas in uu arintiisa u bandhigo ayaa way diideen. culimadaas way ka soo horjeesteen. arintaas ayaa waxay ka dhigtay dacaayado fara badan iyo waxyaalo fara badan laga sameeyay ninka sanadahaas kitaabkiisu ama buugagta uu qoro ay noqdaan buugagta ugu khatarsan ee loogu turjumay luqado fara badan oo adduunka kuwaas oo ku shacbaxay galayna Guinness World Record. barnaamijka Guinness World Record inuu yahay qofka ugu caansan ee kutub qora kuwaas oo heerka faafitaankiisu ay gaadhay heer aan caadi ahayn oo aad sare u loogu qaaday kutubtiisa iyo qoraalada uu sameeyay iyo aasaaska kaniisaddaas. ninka lagu magacaabo Ronald Harvard waxyaalaha la yaab kale waxa kamid ah inuu aaminsan yahay inuu yahay qofka ugu mu'minsan ee ugu aaminaada badan. waxa kale oo uu aaminsan yahay inuu noolaa sidii xadaaradihii Finiqiyiinta iyo Talyaaniga ee hore. waxa kale oo uu haystaa jihaas lagu magacaabo meter jihaaskaas oo ku tilmaamay inuu yahay jihaas cabiraya qofka ra'yigiisa iyo fikirkiisa. inkastoo ay leedahay xarumo fara badan Scientology haddana xarunta ugu weyn waa markab dushi. markabkaas oo markab dalxiis oo lagu magacaabo Apollo. dhanka kale waxa lagu leeyahay Scientology waxyaalaha kaliya ee waaweyn ee loo asaasay inay tahay lacagta iyo sidii lagu heli lahaa maal aad u fara badan iyo waliba faafitaanka kitaabada falaasifada ama ragga filosofiyaasha iyo diinta isku tacalluqa sida kitaabka ay qoreen labada nin ee la yiraahdo Von D. Sinn iyo Christian D. iyo waliba in Harvard ninka la yiraahdo ee asaasay Scientology lacagtiisu ay gaarayso $600 milyan ilaa markii la gaaray in la shaaciyo oo la yiraahdo diintani waa diin rasmi ah dalka Mareykanka. waxaa soo badanaya waxyaalaha tuhumka iyo shakiga dhalinaya ee aadka u kordhaya ee ku saabsan ragga asaasay muassasadan ama Scientology in ay kaliya inay faa'iidaan mooyaane inaysan u asaasin inay lacagta dadka qaataan mooyo wax kale oo faa'iida oo kale oo meesha ku jirta inaysan jirin kaliya in ay dadka ku soo jiitaan afkaartooda kadibna ay ka qaataan lacagta iyo maalka ay haystaan. waxyaalaha caanka ee ku jira waxa kamid ah ragga ka tirsan Scientology sida ninka lagu magacaabo atooraha ee filmaanta Hollywoodka ee la yiraahdo Tom Cruise, John Travolta nin la yiraahdo iyo waliba rag badan sida fanaaniinta heesaha iyo rag bulshada sumcad ku leh iyo gabdho ka shaqeeya dhanka xayeysiinta iyo qurxinta iyo telefishinada sida CNN iyo Fox News. haddaba dhismaha shirkadaas ay leedahay ama Scientology ay leedahay waxa lagu leeyahay waa dhismo aad iyo aad u adag oo gidaaradiisu ay ka kooban yihiin bir aad waaweyn kuwaas oo ay ka cabsi qabaan haddii dagaal nuclear ka dhacaan adduunka dhexdiisa in ay ku badbaadi karaan iyagu. waxyaalahaas ayaa marka ugu waaweyn. barnaamijkan intaas ayuu ku egyahay maanta kaliya macluumaad la idinku soo gudbinayo inaad aamintaan laakiin waa inaad ogaataan la yaabka adduunka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi